ma isweydiisay goortuu bilaabmay hackingku uuna dhacay hackingkii ugu horreeyay ee taariikhda la diiwaangeliyey oo waxay ahayd xilliguu soo baxay internet-ku mise markii ay suurto gashay in computeriska lagu adeegsan karo guryaha si khaas ah. ka war haddii aan kuu sheego inuu hackingkii ugu horreeyay ee taariikhda la diiwaangeliyey uu dhacay ku dhowaad 100 sano ka hor intaan xitaa la adeegsan kelmadda cyber. muuqaalkeedan maanta waxaan kaga hadli doonaa taariikhda cajiibka ah ee hackingka iyo sida uu caalamka uga bedelay hackingku. kusoo dhawaada dhalinyaro muuqaalkeena maanta. sidaynu in badan kusoo qaadanay casharadeenii aynu ku baraynay cybersecurity-ga, hackingku waa inuu dhex galo system iyadoo la adeegsanayo duleelo ama vulnerabilities laga helay systemkaasi. marka gudaha loo soo galo systemkaasina laga fuliyo waxyaabo sharci darro ah sida in la xado xog muhiim ah oo systemkaasi ku jirtay. haddaba systemkaasi wuxuu noqon karaa mid kombiyuutarro ah, shabakad taleefanno ah iyo wixii la mid ah. arrinka la yaabka lahi waa in hackingku uusan ku koobnay shaashadaha kombiyuutarada iyo xilligan dijitaalka ah. hackingkuna uu ku bilaabmay in la khiyaameeyo mashiiniska iyadoo loo adeegsanayo shaqo dadkii sameeyey mashiinkaasi aanay ugu talagelin inuu qabto. taasina waa halkuu ka bilaabmay hackingka aynu maanta ka naqaano. sanadii 1903 Guglielmo Marconi oo ahaa ikhtiraacay injineer u dhashay dalka Talyaaniga ayaa soo bandhigay tiknoolajiyadii xilligaas ugu cajiibsanayd, taasi oo ahayd in telegraafkii loo bedelo mid wireless ah oo aan u baahnayn in xadhig lagu wada xidhiidho, iyadoo fariimaha la isku dirayay masaafo kala fog wax xadhig ahna aan la adeegsanayn. dadweynihii xilligaasina waxay aad ula dhaceen tiknoolajiyadan, balse mid ka mid ah dadweynahaasi ayaan isagoo ku qancin tiknoolajiyadan. waxaanu ahaa nin lagu magacaabi jiray Neville Maskelyani. ninkani oo isna ahaa ikhtiraacay iyo indhasracaadiye iyagoo arkay in tiknoolajiyadan aanay ahayn mid ammaan ah oo la isku hadlayn karo, waxaanu bilaabay inuu taasi caddeeyo. iyadoo lasoo bandhigayo tiknoolajiyadaas wireless telegraafka ah ayaa waxa dhacay wax qariib noqday, taasi oo ah in mashiinkii ka soo baxday fariin aan lagu talagelin, taasi oo ahayd jees lagu sameeyey Guglielmo oo ahaa ikhtiraacii wireless telegraafka. waxaana soo diray fariintani Neville oo khalkhalgeliyey signalkii fariinta uu rabay Guglielmo inuu soo bandhigo. dadweynihii ka soo qayb galay bandhigaasina aad ay ula yaabeen waxa meesha ka dhacay, waxaana halkaasi lagu diiwaangeliyey hackingkii ugu horreeyay ee taariikhda. arrinku ma ahan keliya tabrank oo mid si kaftaan ah loo sameeyey, balse waxay ahayd digniin caalamka lagu sheegay in tiknoolajiyad kasta si kasta u horumarsanaatee ay tahay mid yeelan karta dileelo iyo meelo ay daciif ka tahay. waxaanay dhacdadaasi saadaal ka bixaysay sida uu horumari doono hackingku iyo khatarta uu yeelan doono. muddo kadib hackingku waxa uu helay fagaare cusub, kaasi oo ah phone phreaking. 1960 waxaa soo caanbaxay adeegsiga taleefanada iyo in lagu wada xidhiidho taleefanada si la mid ah wireless telegraafkii. taleefanaduna waxay yeesheen meel ay ka jilicsan yihiin. John Driver oo caan ku ahaa magaca Captain Crunch ee ogaaday in siiriyar ay bixiso shirkadda soo saarta sida boosiska Captain Crunch inuu siirigaasi soo saari karo cod lagu khiyaamayn karo shirkadaha taleefanada. maadaama uu siirigaasi soo saari karo cod 2600 hertz ah lana mid ah frequency-ga ay shirkadda AT&T ay xilligaasi u adeegsan jirtay laymanka fogfog, waxaana John Driver ku guulaystay inuu si free ah ku helo adeegsiga layman fogfog. dabcan xilligaasi laymanku way kala qaalisnaayeen, markasta oo leynka rabto uu fog yahay waxaa kordhaya qiimaha laga qaadayo ee aad ku wacanayso taleefankaasi. ka fikir, John Driver waxa uu adeegsaday siiriyar si uu uga faa'iidaysto guddileen uu ka helay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee isgaarsiinta. isla 1960 ay ahayd markii uu soo caanbaxay kelmadda hacker. jaamacadda MIT waxay ardaydeeda u suurtagelisay inay adeegsadaan kombiyuutaradii xilligaasi oo ahaa kuwa aad u waaweyn oo buuxin kara qolaal dhan. ardayduna aad bay u xiiseynayeen barashada mashiiniskani, taasina waxay keentay in tartan adag loo galo adeegsiga kombiyuutaradaasi. ardayda qaar ayaana markaasi fahmay qaab ay kombiyuutarkaasi ugu adeegsan karaan wakhti ka dheeraad ah ardayda kale, sida inay xadaan passwordska ardayda kale ama inay wax ka bedelaan mashiiniska wakhtiga xadeynayay. markii ay soo caanbaxeen kombiyuutarada sida khaaska loo adeegsadayna waxaa aad faaftay fikradda hackingka. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaynu qaybta labaad kaga hadli doonaa bilowgii hackingka casriga ee xilligan, aasaaskii Anonymous iyo sida uu hackingku xilligan u qaabeeyey caalamka una noqday mid ka mid ah awoodaha dowladaha caalamku u adeegsadaan difaaca danahooda. ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto kuna soo biirto channelkeena KTEL Somali. mahadsanid.